رئيسل وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay 15 May oo maanta ay ku beegan isagoona ballan qaaday in mudnaanta koowaad ay siin doonaan dhalinyarada. Wariyahayaga Aamin ayaa warkan si aban qaadaysa. maanta waxay ku beegan tahay 15 bisha May waa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee la aasaasay dhalinyarada SYL waxaana la filayaa in magaalada Muqdisho lagu qabto munaasabad lagu xusayo sanad guuradii 78aad ee ka soo wareegatay aasaaskii SYL. Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada sanad guurada 78aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee SYL kuwaas oo lagu bilaabay 13 dhalinyaro ah. qoraal ka soo baxay xafiiska Raiisul Wasaaraha ayaa waxaa lagu ballan qaaday in xukuumadda Soomaaliya ay mudnaan gaar ah siinayso dhalinyarada Soomaaliyeed. War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska Raiisul Wasaaraha dhalinyaradii Soomaaliyeed ee xornimada horseeday waxay Soomaaliya dhaxal siiyeen taariikh mug weyn oo ifaysa iyo tusaale Soomaalinimo, gobonimo iyo dal jacayl iyo isku duubin. waxaa kaloo dunida iyo dadka Soomaaliyeedba bareen awood dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida ay guulaha ugu soo hooyi karaan dhinac waliba markii laga helo daacadnimo iyo isku duubnin. xornimadii dalka ka hor iyo kadib si weyn ayuu u muuqday doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee nolosha qaybaheeda kala duwan siiba difaaca dalka iyo howlaha qaran ee muhiimka ah. dhalinyarada Soomaaliyeed waa udub dhaxaadka dalkeena waxayna bulshada ka yihiin in ka badan 70% taasoo ka dhigan in dalkeenu yahay dal dhalinyaro. Xukuumadda Soomaaliya iyadoo garowsan muhiimadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxay mudnaanta gaar ah siinaysaa horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidii loo xoojin lahaa ka qaybgalkooda dhinacyada kala duwan ee nolosha si gaar ahna siyaasadda hogaaminta dalka. dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed isaga oo sheegay in ay tahay in dhalinyaradu ka meel dhalin karaan dib u dhiska dalkeena. waxaan bogaadinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed xuska munaasabada sanad guurada 78aad ee aasaaskii ururkii gobonimo doonka ahaa ee SYL oo maanta ku beegan. dhalinyaradu waxay udub dhaxaad u yihiin xoreynta dalkeena waa tiirka ay ku taagan tahay dowladnimadeena marka laga eego sida ay ugu muuqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, shaqaalaha rayidka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. maadaama bulshada maanta ka yihiin 75% waxaan hubaa in dhalinyaradu ka mar dhalin karaan dib u dhiska dalkeena.